بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan insha allahu tacaala waa macalin ibraahim. waxaan sii wadi doonaa bejka 19aad ayaan maanta kasii bilaabi doonaa. waxa aynu qaadan doonaa casharka la yidhaha magaciisa margin are the blank space around the edge of the page. marginka waxa weeyaan qaybaha bannaan warqadda hareeraheeda ayaa waxaa la yidhahdaa margin. To set the page margin, si aad u dejiso warqadda hareeraha bannaan, waxaad tegaysaa click menu-ga ayaa tegaysaa home menu ayaa tegaysaa, kadibna waxaad dooranaysaa page setup. file menu markaad tagto waxaad tegaysaa page setup, waxaad gelinaysaa enter the new margin table. new margin ayaad gelinaysaa xagga sare, hoosta iyo leftiga iyo right-ka, kadibna waxaad leedahay okay. si aynu u sameyno marginka waxaynu furaynaa wordpad. markaan furno waxaan qoraynaa wordpad baan ku qoraynaa taskbarka, kadibna double click baad leedahay si uu u furmo. waxaa soo bixi doonaa wordpadkii. file menu ayaa tegaysaa markaad margin aynu rabno, kadibna waxaan kasii dooranaynaa page setup. page setupka markaaynu tagno marginku waa halkan aan ku hayo. leftiga imisa ayaad rabtaa inaad kasoo kacdo? 30 oo kale. 20 ayaan xaggan kale ka dhigay. hoosta waa bottomka weeyaan 10, halkana 10. intaad rabto ayaad ka dhigi kartaa, kadibna waxaad leedahay okay. marka la haddaan ku celiyo file marginka markaad tagto file ayaad imaanaysaa, kadibna waxaad tegaysaa page setup. markaad tagto warqaddu waxay leedahay 2 dhinac inaad u qorto. sizekeedu waxa weeyaan waxaad ka dhigi kartaa A3, A4, A5. intaasoo dhan waa sizeska ay leedahay warqaddu. warqadda normalka ah ee wax lagu daabacaana waa A4. warqaddu waxay ka leedahay 2 dhinac, portrait iyo landscape. landscapeku waxaa aad u dhigaysaa balladhka inay ballad ahaan u daabacdo. portraitkana waxa weeyaan inaad u daabacdo si joog ah. hareeraha intaad kasoo kacayso ayaad gelinaysaa lefty oo bidix ah, right oo midig ah, top oo xagga sare ah iyo bottom oo hoosta ah, kadibna waxaad leedahay okay. aynu usii gudubno casharka labaad, waa to search and replace a text. si aad qoraal aad u search garayso una aad bedesho. qoraalkaas wuxuu kaa caawinayaa marka aad qoraal badan kuu qoran yahay samuuradda. qoraalkaasi oo fara badan ayaad rabtaa inaad qayb ka mida aad ka bedesho. si aad u bedesho waxaad tegaysaa in the home menu. home menu-ga waxaad ka tegaysaa right edge select. dhinaca bidix, cidhifka midig ayaad waxaad ka dooranaysaa replace. to find your text, si aad qoraalkaaga aad u hesho, enter it. marka hore qoraal baad gelinaysaa. qoraalkii markaad geliso, kadibna qoraalka aad rabto ayaad gelinaysaa meesha ay ku qoran tahay replace, kadibna waxaad dooranaysaa replace. in the replace with waxaa jirta replace mid la yidhaahdo with iyo replace. waxaad gelinaysaa qoraalka aad rabto inaad kii hore, replace with waxaad gelinaysaa qoraalka dambe ee aad rabto inaad ku bedesho. notice the location of the button. locationka ku yaalo buttonada are different with every operating system. waa kala duwanaan karaan meelaha ay ku yaalaan badhanadu, sida view, insert, home, ama magacyadooda kala duwanaan kara because maxaa yeelay of the different version. dabcadaha cusub ee soo kala baxay iyo updateska yimid ayaa keeni kara inay kala duwanaadaan. but you can find, laakiin waad heli kartaa it iyada if we search it, haddii aan raadino. bal aynu eegno qaabka ay wax isu bedelayaan. hadda waxaan qoray shafi medical. qoraalkaasi ayaan rabaa inaan ku sameeyo search and replace. meesha medicalka ayaan rabaa inaan ka dhigo university. waxa aan tegayaa, uu yidhi qaybta home ayaan joogaa iminka. qaybta midig ayaan tag ayuu yidhi, waxaa ku qoran fine, halkana waxaa ku qoran replace. fine baan ku dhuftay click. fine markaan click ku dhuftay wuxuu ii soo dhigayaa waxaan qoray medical. ereygaasaan rabaa inaan bedelo, kadibna fine next ayaan idhi. fine markaan idhaahdo meeshii wuxuu ii saarayaa highlight. markuu ii saaro cancel haddaan idhaahdo xitaa waan ku noqdo replacena, waa labadii oo wada socda ayay soo dhigaysaa. fine what maxaan raadinayaa
waa medical waxaan rabaa inaan ku bedelo university ayaan rabaa inaan ku bedelo university si eeg balqaabka uu bedeli doono waxaan leeyahay haddii qoraalkaasi uu yahay medical uu yahay qoraal ku jira dhammaan pageka oo kaa kooban 20 ama wix ka badan haddaan idhaahdo replace keliya hal meel ayuu bedeli doonaa haddaan idhaahdo replace allna 20ka page meeshaas ay kaga jirto medical dhammaanteed uu ka saari doonaa muxuu soo qoray Wordpad has finished searching the document waa ii bedelay marka hore maxaan tagayaa replace markaan tago qoraalkan rabay inaan bedelan bartan gelinayaa halkan waxaan gelinayaa qoraalka aan rabo ee cusub kadibna waxaan leeyahay replace all markaan idhaahdana waa is bedelay qoraalkii aan rabay casharka kale aan kusii xijin doonaa koylatan waxa weeyaan copy paste and cut maxay taraan copy waa copy garayn paste-na waa waxaad copy garaysay dib u daabac cutna waa go select waxaan dooranayaa text you wanna to copy qoraalkaan rabo inaan copy gareeyo ayaan leeyahay ayaan highlight garaynayaa click the home menu ayaan tagayaa and click copy waxaan ka dooranayaa copy the paste then click paste button kadibna waxaan ka dooranayaa waxaan leeyahay paste buttonka from the home editing menu isla home editing menu-ga qaybtaasi ayaan kasii dooranayaa waa isku meel ayay ku wada yaalaan macnaha or click amba waxaan leeyahay cut buttonka ayaan leeyahay to erase si aan u masaxo the selected textiga aan rabo inaan masaxo shortcutka ay leeyihiin control a waxay u dhigantaa select all oo ah highlight ii saar dhammaan control plus c waxay u dhigantaa copy control plus v na waxay u dhigantaa waa shortcutka paste control plus x na waa shortcutka cut anaga qoraalkaasi macnaha uu inoo sameynayo iminka highlight baan idhi dhammaan marka highlight-ka saaray waxaan idhi copy markaan idhi waxaan leeyahay paste-kiina waa ku siyaag yaalla markaasdoon paste aan idhaahdo qoraalkaygii aan click siiyo qoraalkayga waa sii liilaabmaya saasoo kale haddaan isticmaalo shortcut keygiina isaguna sidii lamid ah ayuu ii sameynaya haddaan control plus v idhaahdo qoraalkayga sidii buu u copy garaysmaya marka casharkaasina saa qiimahaas ayuu leeyahay inaan waxaan rabo aan ku copyeyn karo marka hore casharka waxaan dooranayaa control a baan leeyahay waxaan rabay waan control gare waxaan saarayaa highlight markaan saaro copy baan leeyahay copy markaan idhaahdo meesha aan rabo inaan ku copy gareeyo ayaan dhigayaa xariijinta yar kadibna paste ayaan leeyahay kadibna waxaan dooranayaa paste markaan doortana dhammaan wixii aan rabay way copy garaysmi doonaan casharka inoogu sii xiga waxa weeyaan to insert the current date and time si aan u insert gareyno current date-ka iyo time-ka saan ugu darno qoraalkii aynu sameynay ee aan qornay si aynu ugu dari lahayn date and time si qoraalkaasi aynu ugu darno current date and time-ka waxa aan leeyahay marka koobaad waxaan dooranayaa meesha aan rabo inaan kaga daro kadibna waxaan tagayaa date and time-ka markaan tago halkan waxay soo baxay available format inta noocee aan rabo in date-ka loo qoro kadibna waxaan dooranayaa kaasi oo bishii iyo wada qoraya sanadkii ama kan wada qoraya bishii iyo maalintii iyo sanadkiiba okay markaan idhaahdo waxay soo bixi doona bishii timekii iyo datekii halkaasi waxaan insha allahu tacaala kusoo waxaan ku qaadanay 3 cashar waa find and merging find and replace copy and paste and date and inserting thank you very much insha allah casharka xiga ayaynu bartaa kasii wadi doonaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا إدكوات كادنا هوست كومنت كي يقول سوقرا إن شاء الله تعالى وين يحبيسك وين كفر قرين دونا